Hi guys, assalaamu calaykum. Waniga Cabditax Ibraahima xagga nagala socotana waxa weeye Somaltech. Haddaad ku cusubtay channelka oo jecesha computerka inaad ka baratid iyo waxyaabahaas oo dhan maxay ahaydee xagga ugu saxsanaad ka heli karta oo Soomaali ku baxaysa waa xaggan. Marka fadlan nagu soo biir waa mahadsantay. Maanta waxaan ka hadli doonaa casharadeenni xiriirka inoo ahaa cashar ka mid ah oo computer hardware-ka ka tirsan. Waxaa loo yaqaanaa maxay ahayd maanta ka hadli doonaa power supply-ga. Okay, power supply-ga sida arkaysid xaggan waxa weeye shayga maxay ahaydee ama hardware component-ka ama qalabka ama device-ka ka mid ah computer-ka dhammaan qalabyada kala siiya dabka si ay u shaqeeyaan. Waayo dabka la'aantii ma shaqeynayo maxay ahaydee computer-keenu ama maxay ahaydee dhammaan electric device-ku ama electronics-ku ma shaqeeyaan dabku haddii aanu ku jirin ama wax dab siinaya haddii aanu jirin. Marka waxaan ka hadlaynaa maanta power supply-ga waxa uu yahay. Okay, power supply-ga soo sheegnay waxa weeye waa qalab ka sawirkiisa xagga idinka muuqdo maxay ahaydee siiya computer-ka qaybihiisa kala duwan ama hardware components-ka maxay ahaydee siiya dabka. Okay, power supply-ga waxa weeye shay wuxuu u bedelaa computer-keena waxaa jirta sida caadiga dabku laba nooc buu noqdaa mid loo yaqaano AC ama alternating current iyo mid loo yaqaano DC direct current loo yaqaano. Marka labadaas way kala duwan yihiin. Ka DC-ga loo yaqaano waa ka ay ku shaqeeyaan dhammaan qalabyada maxay ahaydee electric devices-ka ama electronic devices-ka ay ku shaqeeyaan. Maxay ahaydee AC-guna waxa weeye kan guryaha inoogu jira maxay ahaydee aynu shidano sida laambada iyo waxyaabahaas oo dhan ay ku shaqeeyaan. Marka AC-gaas ayuu u bedelaya maxay ahaydee DC si uu ugu shaqeeyo computer-kaagu waayo kuma shaqeyn karaya maxay ahaydee waxa loo yaqaano maxay ahaydee AC-ga. Marka waxa ku jira qayb loo yaqaano rectifier oo xagga dambe ka arki doono qaybtaas ayaa bedesha maxay ahaydee AC ka dhigta DC. Xagga wuxuu siinaya maxay ahaydee taxadir yar marka computer-kaagu maxay ahaydee uu xumaado ama uu fadhiisto ama computer-kaaga maxay ahaydee aad ka maaranto ha furin case-ka maxay ahaydee power supply-ga sababta oo ah waxa ku jira capacitor kaas oo sababi karaya maxay ahaydee in uu sameeyo electric charge fara badan kadibna dhaawacdii kugu keeni karaya. Sida maxay ahaydee haddii tusaale ahaan oo kale xataa computer-kaaga uu xidhan yahay oo computer-kaagu aanu dabka ku jirin ama maxay ahaydee computer-kaaga muddo dheer aan isticmaalin oo hays odhanin ma shaqeynayo wuu shaqeynayaa markaa marnaba lama furo maxay ahaydee power supply-ga waa la iska fogeeyaa meel fog ayaa la gaarsiiyaa la geeyaa. Sida xagga ka arkaysid wuxuu ku siinayaa tip buu ku siinayaa waxa jirta saynu naqana waxa loo yaqaano power outage-ka ama power-ko exceed sameeya maxay xagga waxa yaala waxa loo yaqaano surge ama waxa loo yaqaano voltage drop-iska. Marka haddii maxay ahaydee computer-kaaga uuna lahayn waxa loo yaqaano UPS ama uninterruptible power supply waxa loo yaqaano oo ku saamaxaya shaygaaga haddii voltage-kaagu uu exceed sameeyo ama voltage-kaagu increase uu sameeyo ama uu kordho ama uu yaraado oo maxay ahaydee xaddigii loo baahnaa uu computer-ka uu siin lahaa qalabka computer-ka uu maxay ahaydee gaarsiin waayo ama uu ka badiyo ama uu ka yareeyo waxa uu keeni karaa maxay ahaydee damage inuu ku keeno computer-kaaga ama device-ka kale ee isticmaalaya. Sidaas awgeed waxaa la investigate ama la isticmaalo waxa loo yaqaano UPS ama uninterruptible power supply wax loo yaqaano. Haddii aad maxay ahaydee power supply maxay ahaydee ama uninterruptible power supply-gaas aad heli kari weydo qalabka UPS-kaas waxaad samayn karaysaa qalabka loo yaqaano surge protector-ka oo maxay ahaydee ka hortagaya protect gareynaya maxay ahaydee power-kii maxay ahaydee dheeraadka noqonayay ayaa loo baahan yahay. Haddii kale computer-kaaga wuxuu ku keenayaa damage fara badan oo maxay ahaydee aan laga soo kaban karaynin. Okay, waxaan ka hadli doonaa qaybaha maxay ahaydee laga helo computer power supply-ga gudihiisa laga helo. Qaybo ayuu leeyahay xagga hoose lagu taxay waxa ka mid ah waxa loo yaqaano rectifier-ka. Rectifier-ku waxa weeye electricity ma kala joogo in badan baad arkaysaa waa shay muhiim ah macnaha waxa weeye qalab muhiim ah wuxuu sameynayaa AC-ga ayaa wuxuu u bedelayaa macnaha DC-ga labada qaab ee uu jira karanku midna uu yahay kan guryaha ku isticmaalay AC-ga ah 220 ga ah ama 110 ka ah iyo maxay ahaydee ka loo yaqaano DC-ga ay ku shaqeeyaan qalabada maxay ahaydee electronics device-ka oo computer-keenu ka mid yahay. Marka qalabkaas wuxuu bedelayaa DC buu ka dhigayaa macnaha DC-guna waxa weeye waa ka uu ku shaqeeyo computer-keenu AC kuma shaqeeyo. Marka dhammaan qalabyada maxay ahaydee devices-ka electronics-ka waxay ku shaqeynayaan wax loo yaqaano DC ama direct current loo yaqaano. Waxa ku xiga oo ka mid ah qalabada ku jira ama devices-ka gudaha ugu jira waxa chipka yar
waxa loo yaqaano filteriska ama saad englishka caadiga loo yaqaano waa wax shay shaandhaynaya shay. marka wuxuu ka dhigayaa maxay ahayd smooth buu ka dhigayaa, macnaha marka la bedelo karankii ee laga dhigo DC ama direct current waxa laga yaabaa inay soo raacaan waxyaaba aan loo baahnayn. waxyaabaha aan loo baahnayn buu ka saaraya filterku. waxa ku xiga transformerkuna waxa weeye waa shayga haddii uu karanka soo galay ama voltageka soo galay uu hooseeyo kor buu qaada, haddii uu sarreeyana hoos buu dhigaa. macnaha waa step down iyo step up transformerka shaqooyinka uu qabanayo ama uu samaynayo. waxaana uu ka mid yahay shayada ku jira computerka power supplyga gudihiisa. waxaa ka mid ah voltage regulatorka wuxuu controlayaa xaddiga maxay ahayd soo gelaya ee powerka ama voltiska ama wattska ayuu controlaya. macnaha intii uu u baahnaa maxay ahayd computer hardwareku ama computerku ay u baahnaan qalabada computerku ayaa maxay ahayd uu siinaya. haddaba qaabka ay u shaqeynayaan shaqada ama orderka siday u kala horeeyaan ayuu xaggan inoogu sheegaya. transformerka ugu horeeya oo karanka maxay ahayd ama kor baa loo qadaa marka hore kadibna maxay ama hoos baa loo dhigaa. marka inta la sameeyo waxaa loo gudbiyaa rectifierka ayaa bedelaa oo ka dhiga DC. rectifierka markuu soo gudbo wuxuu galaa filterkuna wuxuu ka dhigaa DC karanka la soo bedelay ee rectifier ka yimi mid maxay ahayd smooth oo waxyaabihii aan loo baahnayn laga saaray. waxaa ku xiga voltageka markaa maxay ahayd regulatorka wuxuu siiyaa amountkii ama xaddigii u baahnaa power ahaa ee u baahnaayeen qalabada kale ee computerku ayuu isaguna siiyaa. markaa si guud waxa weeye intaas wax ka sheekeynaysaa qalabada ku jira maxay ahayd power supplyga gudihiisa iyo siday u shaqeynayaan. iminkan waxaan eegi doonaa maxay ahayd xagga su-aasha inagu weydiiyey power supplyga qalabada uu siiyo powerka. marka waxaan odhan karnaa haddii aan soo duduubno dhammaan maxay ahayd computerka ama qalabka computerka ama caseka computerka oo dhan wixii ku jira wuu siiyaa maxay ahayd dabka. waxaa ka mid a waxyaabaha dabka siiya ramta ka mid a, CPU-ga ka mid a, hore naga soo hadlay, hard drive-ka ka mid a, disk driverska ka mid a, iyo dhammaan maxay ahayd video cardska aan ka soo hadlay qayb ka mid a oo loo yaqaanay GPU casharkeennii kan ka horreeyay. marka waxaan odhan karnaa qalabada computerka badankooda maxay ahayd ama computerka maxay ahayd components ka kooban yahay power supply uu siiya dabka. xagga waxaad arkaysaa oo ku sheegayaa note ku siinayaa computeriska laptopka iyo all in one computer kuwa la dhaho dhammaan maxay ahayd all in one computerka waxa weeye computeriska maxay ahayd isku samaysan maxay ahayd loo yaqaano dhammaan maxay ahayd qalabadii internal hardwarekii iyo waxyaabihii oo dhan la isku sameeyey ee screenkeedu uu ballaaran yahay ayaa loo yaqaanaa all in one computer. imageka xaggan ayaan soo dhigi doonaa all in one computerka sidaad aragteed maxay ahayd waxa uu yahay. marka intaas ku sheegaya marka dhammaan qalabada ku jira computerka uu ka shaqaysiiya maxay ahayd dabka uu siiya maxay power supply. xaggan wuxuu kuu sheegayaa wuxuu leeyahay maxay ahayd power supplygu marwaxad buu leeyahay. marwaxadaas miyay shaqaysaa? way shaqaynaysaa mar walba. marka power supplyga marwaxada ku jirta waa in ay inta badan ama mar kastaba waa in ay noqotaan running mid shaqaynaysa waa in ay noqotaa. haddii kale maxay ahayd waxaa maxay ahayd laga yaabaa inuu damage soo gaadho maxay ahayd shayga maxay ahayd power supplyga maadaama uu heat fara badan iyo dab badan bixinayo. waxaa loo baahan yahay maxay ahayd in uu helo shay qaboojiya. xaggan wuxuu ku siinayaa note buu ku siinayaa. notekaasi wuxuu sheegayaa in maxay ahayd marwaxadda ku xidhan computerka ay ku xidhan tahay hadda maxay ahayd power supplygu controlskiisa. macnaha shayada controlaya power supplygu hadda sida u shaqeynayaan ayaa ka dhigi kara maxay ahayd power supplygu maxay ahayd fanka ka dhigi kara ama marwaxadda ka dhigi kara inay si fiican u shaqeyso si aada ama maxay ahayd inay shaqadeeda dhinto. laakiin mar walba waa in ay maxay ahayd shaqeysaa marwaxaddu ayaa loo baahan yahay. si fiican marka casharkeeni maanta wuxuu inooga ogyahay xaggaas. marka casharka lamid intaan ku kulmayno waxaan ka tegnaa saasi nabadgelyo. waa mahadsantihiin intaad na dhegeysaneyseen intaad daawaneyseen. si aad casharada noocan oo kale u hesho waxaad ka codsanaa channelka kusoo biirtaan subscribe saarto. waa mahadsantihiin.